Okay, soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan idin tusayaa qaabka computerka screen recording loogu sameeyo. Marka laba qaab baan idin tusi doonaa. Mid waa built-in oo computerka ku soo baxa Windows-ka, operating system ku soo raaca. Midna waa software. Marka ka ugu horeeyaan aan idin tuso shortcut baad ku tagaysaan. Windows-ku ku soo baxa kani. Marka waxaad taabanaysaa Windows, Shift iyo R ayaa isla taabanaysaa hal mar. Marka intaas la taabato bartaas ayaa ku soo baxaysa. Waxa weeyaan haday sawirkaas oo kale ku dooran yahay video-ga dultag sidaydoo kale. Video marka dultagto waxa weeyaan calaamadda cross-ka. Calaamadda lanqeyrta markay ku soo baxdo waxay ka dhigan tahay waxaad dooran kartaa inta aad rabto inaad screen recording ku samayso. Tusaale ahaan anigu waxaan ku sameynayaa screen-ka oo dhan. Intaas oo dhan baan dooranayaa marka ilaa hoos ayaan u xijinayaa. waxa weeyaan screen-ka oo dhan baan sidaa ku doortay. Intaas ayuu marka ii select gareeyay. Waan bilaabayaa marka start ayaa ku dhufanayaa. 1 2 3 ayuu ii tirinayaa. Waan bilaabayaa marka saas oo hadda video-gii screen-ku hadda wuu duumayaa. Background-gu ka socdaa adigu marka wax sharaxaysaa waad bilaabaysaa. bartaana codkaad ka furanaysaa oo marka aad tusaale ahaan qaybta desktop-kan hadda dul jooga video-giina wuu socdaa. marka qaybta yar casbaad kaga jaraysaa markaad ka jaraysana. marka saaxiibayaal nidaamkan wuxuu ku fiican yahay isagu isla markaaba video-gii oo diyaar ayuu ku tusayaa. tusaale ahaan haddaan play iraado saaxiibayaal codkan gadaal baan ka saaray laakiin video-ga iyo codkii wada socday oon markii hore duubay la daawada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Okay saaxiibayaal waad fahanteen baan u maleynayaa nidaamka hore. qaabkan labaadna saaxiibayaal software baan isticmaalaynaa. saaxiibayaal waa kan nidaamka labaad waxaan isticmaalaynaa software-ka waxaa la yidhahdaa Camtasia. anigu kan ayaan isticmaali jiray in muddo ah. marka waa software-kaas weeyaan waad soo kicinaysaa. Camtasia ayaa la yidhahdaa waa screen recorder sidoo kale waa editor oo waxbaa lagu edit garayaa sida Premiere oo kale. markaad soo kiciso bartan ayuu ku keenayaa new recording ayaad dooranaysaa. marka new recording markaad taabato waxaa ku soo baxaysa daaqadan kale ayaa ku soo baxaysa record ayaad dooranaysaa. marka 3 2 1 ayuu ku xisaabinayaa. marka intaa wixii ka dambeeya screen-ka waa la duubaya. marka saaxiibayaal markaad minimize garaynayso bartaasaad dooran, markaad jaraysa bartaasaad dooran, markaad joojinaysana bartaas ayaa dooranaysaa. tusaale ahaan markaad video-ga yar joojinaysa halkaas oo kale aad dooran. haddii aad video-ga aad xiraysa gebigiisana halkaasaad dooran, markaasaad taaban. marka bartan ayuu ku keenayaa saaxiibayaal. waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay halkan inaad ku edit garaysataa rabtaa. waa kan video-gii tusaale ahaan ila dhegeysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saaxiibayaal saan idiin sheegay codkan gadaal baan ka saaray video-gu codkaas ayuu lahaa. markaad bartaa joogto saaxiibayaal waxaad sameynaysaan export ayaad oranaysaa. dabeetana local computerka ayaad dooranaysaa. magac baad u bixinaysaa. tusaale ahaan 12 ayaa ku qoray magaca. goobta uu ku save garaynayana badanaa automatically wuxuu ku save garayaa documents-ka. folder Camtasia la yidhahda ayuu u sameeyaa. documents-na wuu ku save garayaa. marka video-gii haddaba ka wuu galayaa. marka rendering ku sameynayaa. marka location open location baad oranaysaa. video-ga bartaasaad ugu tegaysaa. marka 12 ku qoraa waa ka video. saaxiibayaal labada arrimood ayaan jeclaystay inaan la wadaago. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. asalaamu calaykum.